kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii faallada isbuuca oo aad isbuuciiba mar ka daawan jirteen bogagga aan YouTube iyo Facebook ku leenahay ee Wadaagsan Production. haddaba daawadi haddii ay tahay markii kugu horeysay ee aad soo boqotid bogga YouTube-ka ee Wadaagsan Production, fadlan subscribe ha hilmaamin gambaleelkana furo si aad markaasi u heshid xog walba oo aan halkaan soo gelin. ku mahadsanid haatan ku soo dhawaada xog muhiim ah oo ku saabsan qaraxii 21 Diseembar habeennimadii Sabtida ka dhacay koonfurta magaalada Gaalkacyo ee qaybta Galmudug. habeennimadii Sabtida 21 Diseembar abaarihii 8:40 waxaa ruux isku soo xiray walxaha qarxa oo agagarka hotelka 5 Star oo ku yaala dhinaca koonfureed ee Gaalkacyo qaybta Galmudug uu qarax kula eegtay mas'uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. 17 askarta dowladda federaalka iyo 7 qof oo shacab ah ayaa ku geeriyooday qaraxaasi. sidoo kalena 6 ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ahaa kuwii weerarka soo qaaday ayaa dhammaantood geeriyooday. dhaawaca ayaa gaaraya ilaa 30 ruux waxaana la kala geeyay 2 isbitaal oo magaalada ah. gaadiid laba ah oo ay lahaayeen ciidamada federaalkuna halkaasi waa ay ku goobteen. ciidamada BSF ee Puntland ayaa gurmad xoog la sameeyay waxayna badbaadiyeen inta badan askartii iyo shacabkii la weeraray. wajada gaari Cabdixamiid Dir oo saraakiisha la weerarayna way ka badbaadeen qaraxaasi waxaana la geeyay saldhigga ciidamada BSF ee Gaalkacyo. haddaba weerarkan ayaa ku soo aadaya xilli ay xiisad adag ka dhex taagneyd madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo siyaasiyiin hayb ahaan iyo xildhibaano ka soo jeeda maamulka Galmudug. madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdixasiis Xasan Laftagareen ayaa hadal uu habeen hore ka jeediyay munaasabada sanad guurada koowaad ee doorashadiisa wuxuu ku weeraray siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanada Galmudug oo uu ku eedeeyay inay ka been sheegaan xasuuq ka dhacay Baydhabo isagoo xusay inaanay soo hadal qaadin dadkii lagu xasuuqay Gaalkacyo. Laftagareen ayaa lahjad u adeegsaday waxa ay dagaal siyaasadeed oo qabyaaladeysan ka dhex dhalisay siyaasiyiinta iyo xubnaha baarlamaanka ee ka soo jeeda labada dhinac. xildhibaan Mahad Salaad ayaa noqday xildhibaankii ugu horeeyay ee ka falceliya hadalka madaxweyne Laftagareen wuxuuna sheegay in haddii falkii ka dhacay Gaalkacyo uu qabiil u saarinayo in isagana uu qaado mas'uuliyadda dadka ay Al-Shabaab laayaan. waxaan kuu sheegayaa madaxweynow haddii mooryaanta Gaalkacyo dadka ku laayay qabiil ahaan aad noo xijinayso adigana midka Al-Shabaab ee maalin walba dadkeena ku xasuuqa magaalada Muqdisho isku qabiil ayaa tihiin ee mas'uuliyadiisu adiguna qaado ayuu yiri Mahad Salaad. hase ahaatee hadalka Mahad Salaad ayaa waxaa si degdeg ah uga jawaabay xildhibaano ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo ka tirsan baarlamaanka federaalka iyagoo ka dalbaday haddii uu raaligelin ka bixin ay mooshin anshax ah ka geyn doonaan baarlamaanka. xildhibaan Cabdifataax Ibraahim Geesay ayaa ku hanjabay in haddii Mahad Salaad uu raaligelin degdeg ah ka bixin waayo hadalladaasi uu mooshin ka geyn doono. waan arkay ayuu yiri qoraal laakiin waxaan wacay si uu mar kale aan hubiyo wuxuu u qoray iyo sidoo ila hadlay waa islaayeen. xildhibaanka hadduu raaligelin degdeg ah ka bixin waayo isla hadda waxaa soo xabarito fadhiga baarlamaanka ka gudbin doona mooshin ka dhin ah kadibna guddiga anshaxa ayaa la marinayaa si waafaqsan sharciga iyo xeeroosaadka golaha shacabka si looga qaado tallaabo waafaqsan ayuu yiri Cabdifataax Ibraahim Geesay. dhinaca kalena wasiirka hoggaanka warfaafinta xildhibaan Aadan Isaaq Cali ayaa sheegay in xaasidnimo ka weyn in bulsho dhan lagu tilmaamo inay argagixiso yihiin lagana fiican yahay in Al-Shabaab laga dhigo qabiil gaar ah taas oo aan laga heshiin karin marka argagixiso la isku tilmaamo. dooda ka dhalatay arintani ayaa isu bedeshay mid qabyaaladeysan iyadoo siyaasiyiinta labada dhinacna ay daqiiqad isugu jawaabayaan ayna keeni karto kicib bulsho ah. sidaasi si la mid ah dabayaaqadii bishii Sebtembar 2018 madaxweynihii hore ee Puntland mudane madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas ayaa khudbad uu ka jeediyay magaalada Baran ayuu Gaas kaga hadlay Al-Shabaab ka dagaalamaya Puntland kadib markii la sheegay in Gaas uu si gaar ah farta ugu fiiqay dadka ka soo jeeda gobolada Koonfur Galbeed iyadoo markaasi xildhibaanada Koonfur Galbeed ka soo jeeda ee ka tirsan baarlamaanka federaalku ay aydeen u soo jeediyeen dalbadeena in madaxweyne Gaas uu cafiis ka bixiyo arintaasi. haddaba su'aalaha isweydiinta mudan ee shacabka Soomaaliyeed isweydiinayaan ayaa waxaa ka mid ah maxay dadka hayb ahaan ka soo jeeda Koonfur Galbeed ay badi uga qayb qaataan weerarada ay fuliyaan Al-Shabaab maxaa si xiriir ah oo ka dhaxeeya. su'aasha labaad ayaa noqonaysa maxaa ku gaara xildhibaanada iyo siyaasiyiinta Koonfur Galbeed oo mar walba ka dhiidhiya siyaasiyiinta beelaha kale oo Soomaaliyeed oo eedeyn u jeedinaya dadka hayb ahaan ka soo jeeda Koonfur Galbeed iyagoo ku xaglinaya inay ka qayb qaataan duulaamada iyo weerarada Al-Shabaab. daawadayaal intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaa barnaamijkeennii faallada isbuuca ee isbuucan. intaan mid ka xiiso badan ku kulmi doona waxaynu kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.